fadhiya gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen waxaana xaadiray in ka badan 140 xildhibaan waxaana la hordhigay mooshin dhowr iyo 20 xildhibaan ay ku saxiixan yihiin oo ka hadlaya jihaynta doorashada dabcan dad badan ayaa sugayay kulanka golaha shacabka laakiin saaka marsi horeysay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir صادق جون ayaa muuqaal uu soo duubay oo lagu baahiyay qaar kamida telefishinada maxalliga ah waxa uu ku sheegay in ciidamada booliska ee gobolka ay joojiyeen kulanka baarlamaanka wuxuuna sheegay inaan loo baahnayn xilligan in laga hadlo muddo kororsi iyo wax ku saabsan doorasho baarlamaanka Soomaaliya maanta waxaan hakinay kulankii ay lahaayeen waxaan u hakinay waxa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobay inaysan dhicin isfaham siyaasadeed la gaaro baarlamaanka Soomaaliyana waxaan leeyahay 4 sano ayaad joogteen 4 sano way ka dhamaatay waa la idin soo doortay doorasho dib ugu laabta dagaanadii iyo dadkii idin soo doortay dib kalsooni weydiista kadib imaada adinka oo xalaal ah oo dad soo doortay ah adigoo lagu soo doortay ha ka fakirin inaad wax boobto oo aad wax kororsato waxaad heli kartaa waqtiga iyo qarashka iyo rafaadka ku bixinayso intaas inaad dadkaagii ula laabato kalsooni soo weydiisato markale taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadiq John waxa kale uu sheegay in cidda amniga gobolka Banaadir xukunta ay tahay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir isla markaana uu isagu taliye u yahay amniga gobolka Banaadir aniga ayaa ka mas'uul uga sareeya muxaarad iyo muxaafid qof walba oo Soomaaliya waa inuu amni ku joogaa kama shaqeey karo qalaaso kama shaqeey karo hebel gudu kama shaqeey karo waxaas u dhan gurigiis nabad inuu ku joogaa businesskiis nabad ku joogaa magaaladiis nabad ku maraa looma baahna baabul dagaal qof walba oo haysta oo rabo inuu isticmaalo qof kale Soomaaliya waa inuu dhigaa ma dhici karto inuu isticmaalo mas'uuliyadaas ana u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka Banaadir taliye Saadiq John waxa kale oo ka hadlay arrimo siyaasadeed oo ay kamid tahay shirki ka socday afisione oo ugu baaqay ra'iisul wasaaraha iyo madaxda Soomaalidu inay shirkaasi ku laabtaan laakiin markii muuqaalkaasi la baahiyay wax yar un kadib ayaa taliyaha booliska Soomaaliya General Xijaar waxa uu sheegay in uu xilki ka qaaday taliyihii booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir Saadiq John wuxuuna xilkaasi u magacaabay taliyihii ciidanka gaarka ah ee booliska ee Haram Cad la yiraahdo Farxaan Qarole halkaas markay arrintu maraysa ayaa ku xigeenka gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Caliyara oo isna telefishinka dawladda ka hadlay waxa uu sheegay in amniga magaalada Muqdisho ay ciidanka dawladdu ay si buuxda gacanta ugu hayaan waxaan halkan kala wadaagayaa ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibadiisaba in xaaladda amni ee magaalada caasimadda gobolka Banaadir ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan innaga oo ku amaanayna firfircoonida iyo foojignaanta dheeriga ah iyo sida had iyo goor ay ugu foojigan yihiin inay ka hortagaan dhagaraha laga soo maleego gudaha iyo dibadda intaba halkan dadka gobolka Banaadir ku nool muddo aad u fog oo 30 sano ah ayay ku jireen jahawareer iyo calaado iyo dhibaatooyin hadda waxaan soo gaarnay xilli aan la aqbali karin in fawdo dib loogu laabto qof kasta oo isku daya ama gudaha joogo ama dibadda joogo fikrada isaga ka timaado ama shisheeyaha ka timaado halkan Muqdisho ma ahan mid laga aqbali karo waqtigeedina wuu dhamaaday shir jaraa'id oo goor dhaweyd lagu qabtay magaalada Muqdisho ay joogeen xubno ka tirsan hogaamiyaasha mucaaradku ay ku jiraan madaxweynayaashii hore Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur dhammaan tood waxa ay soo dhaweeyeen tallaabadii uu qaaday taliyaha boolisku sheegay in xilka laga qaaday xukumi jiray booliska gobolka Banaadir waxay sheegeen inay tallaabadaasi ahay tallaabo geesinimo leh waxayna ku booriyeen saraakiisha kale ciidamada inay tallaabo noocaas ah ay qaadaan sidoo kale waxay aad u weerareen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa baarlamaanka iyagoo ku eedeeyay in ay muddo kororsi ka fakirayaan dabcan mucaaradku in dawaalaba arrinta muddo kororsiga iyo baarlamaanka aad ayay uga hadlayeen Bashiiro